بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم walaalyaal ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan kaga warrami doono neefkan xoolaha ah oo kamid ah xoolaha Ilaahay noo xalaaleeyay ee mayeedaanka ah qaabka loogu udhaysanayo iyo shuruudaha leeynoga baahan yahay marka koowaad udhaxada waxa loo gowracayaa neefka geel iyo lo iyo ari ku danabaha noqdee Ilaahay subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala Ilaahay wuxuu yiri fasalli li rabbika wanhar rabbiga utuka una gowrac Ilaahay baa loo gowraca wax subhanahu wa ta'ala waxa leeynoga baahan yahay markan uu duxaysanayno inaan shuruudo buuxino shuruudaha marka waxa weeyaan oo kamida shartiga koowaad waxa weeye in xoolaha aynu ku duxaysanayna ay yihiin xoolaha loo yaqaan mayeedaanka oo ah geela iyo lo'da iyo ariga lama ogola marka digaaga iyo kalluunka malay lama ogola sidoo kale lama ogola dameer farowga iyo xoolaha kale marka horeba Ilaahay noo xalaaleeyay subhanahu wa ta'ala marka laga reebo geela iyo lo'da iyo ariga ayuu bal rabaa inaad gowracdo maxaa u daliila waxa u daliila aayad quraana oo Ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام وحوي وحولا ميرانكا بالاتفاق وحل اسكوا فقسين ياهي إن حولها سنة أيهين جيل إيا اللوضة إيا أريا شرط قلبات اللي نقبها هي وحوي ولا ليال وإن نيفكاسي وقاري دادي اللوغو تلقلين نبي قول صلى الله عليه وسلم وإن قاران داد الله يقانو مصنة مصنة وحوي جيل وإنه لحسن جريهي أو لما يستي 5 سنوات لوضنا وين يسدح جرتهي أو لما يستي سنة كي لبات وايهي أريقنا وإنه يهي مركها 2 سنة جر أو لما يستي سنة كي كواد كامل أو لما يسترمي رسول كوحو صلى الله عليه وسلم هدي آد ويدان مرك واحد قورعدان الجدع جدع هو محي مرك ونافك إيدها لح أما وانكو ضنبها هذا داديسو ay tahay 6 bilood marka 6 bilood kama yaraan karo waaye rasuulku hadaba muxuu ku udhaxaysan jiray nabigu wuxuu ku udhaxaysan jiray idaha waliba khaasatan wanka oo nabiga waxa ka sugan xadiiskii saxiixaynka ku yaalay rasuulku waxa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam oo saxaabigi wuxuu yiri dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bikabshayni amlahayni aqranayn nabigu wuxuu ku udhaxaystay 2 wan oo amlahayni cadaan midabkoodu cadaan buu culimada qaar waxay leeyihiin cadaan iyo casaan ayaa isku jira ama casaan iyo midabka guduudan iyo cadaan kuwa kale waxay leeyihiin cadaan iyo madow waxa kale uu yiri aqranayni geesana way lahayn 2 gees bay lahayn dabahuma biyadihi nabigu gacantiisa ayuu ku gowracay sama wa kabbara bisimkana wuu qabtay takbiirtana waa akhri markuu gowracayay waan idin tusi doonaa qaabka loo gowraco wuxuu yiri bismillaah allahu akbar ayuu yiri waxa kale uu dhahay saxaabigi wa wada'a rijlahu ala sifahihima jilibkiisa ayuu nabigu dusha ka saaray neefka qoortiisa marka la gowracayo ayaan idin tusi doonaa practically insha Allah ta'ala way marka xoolaha aad ku udhaxaysanayso waxa ugu wanaagsan inaad sunnada nabiga raacdo oo waa inuu noqdo maxay iido gaar ahaan waa inuu wan ka sii noqdo walibana waa inuu ka sii noqdo midabkiisu cadaan uu yahay ama cadaanku ku badan yahay walibana waa inuu yahay mid geesale taasa ugu wanaagsan laakiin haddaad ku udhaxaysato laxda ama geela iyo lo'da lab iyo dhidi ku doonaba noqdo way ka gudmaysaa weey shardiga saddexaad ee inooga baahan yahay waxa weeye waa inuu neefku ka maran yahay ceebahaas markaas waxa kamida inuu cawaran yahay nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam neefkaas marka aad gowracaysaan waa inaanu ahayn almariida albayyin maraduha mid xanuunsanaysa oo jirada haysaana ay cadahayba oo muuqato waxa kale nabigu dhaal awra albayyin awruha ta marka cawaran ee ishi marka ay ka soo laalaato ama sida bariiska kale ay noqotay cadaatay ishi ama ishaba beeshay taana lama ogola waxa kale rasuulku yiri al-arja al-bayyin dal'uha ta marka dhitinays ee laangadhanimada iyo jiisnimadu ka muuqato waay waxa kale rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam al-ajfa allati la tanqa iyo neefka weyda to dhuuban ee maaragtay maqaar iyo harag yar iyo lafaysi saaran kana lama ogola
waxa kale oo aan la ogolaan baydeen culimadu wixii inta la mida ama soo hoos kaliya maxaa kamid mid indhala gabigeedba dam ah ama lugta la gooyay ama gacanta la gooyay ama dhaawac weyn qabta kuwana lama ogola weeyaan shardiga kale ee afaraad ee loo baahan yahay waxa weeye waa inuu neefkan yahay mid adigu leedahay milkigaaga adaa leh adaa hantay waa inaad adigu leedahay ama lagu siiyay marka waa inaad lahaanshaheeda leedahay haddii la soo dhacay oo tuugnimo ay kugu soo gashay iyo boob iyo dhac iyo burcadnimo lama ogola udxana kuma noqonayso waaye sidoo kale neef lagu dhiibtay oo lagugu rahantayna oo lagugu noo siihay ama rahan noogu siihay iyadana kuma baxayso shardiga lixaad ee u dambeeya waxa weeye inooga baahan yahay waa inaad neefka gowracdo xilligii loogu talagalay oo ah salaada ciida marka laga soo baxo ayaa waqtigeedu bilaabmaa salaada ciida ee maalinta ciidul adxada salaada ciida marka laga soo baxo xilligeedii ba bilaabmaya ilaa iyo goormuu soconaya maalinta ciida saddexda maalmood ee ka dambeeya loo yaqaan ayaamu tashriiq saddexdaaba waa la gowrici karaa maalinta saddexaad saddexda maalmood baan hadda ka waramaya maalinta ciida ka dambeeya maalinteeda saddexaad bacda al-casr salaada casr ilaa inta soo dhan waxa weeyaan wad gowrici karta marka hadaad neefka gowracdo iyadoo aan salaadii ciida la tukanin ka hor udxama noqonayso hadaad saddexdii maalmood ee ciida ka dambeeyay markii ay qorraxdu dhacday kadib aad gowracdeen markaana udxama noqonayso marka waqtigeedu waa inta 4 maalmood baan haysanaa maalinta ciida iyo 3 maalmood oo ka dambeeya habeen iyo maalinba wad gowrici karta waxaana ku fadli badan hadaad rabto sidii sunnada rasuulka waxa ku fadli badan inaad gowracdo isla markaad salaada ciida saa uga soo baxdo inaad bisinka u qabato oo aad gowracdo hadaba iminka waxaan ku tusayaa walaalkayga muslimka walaashayda muslimada neefka xoolaha ah qaabka loo gowracay ee sunnada waafaqsan sallallahu alayhi wa sallam neefkana wuxuu kamid yahay kuwan ku wadxaysanayno insha Allah ta'ala nala socda bismillahir rahmanir rahim walaalyaal marka ugu horeysa rabto inaad wadxaysato neef xoolo ilaahay dartii u gowracdo waxa lagaaga baahan yahay inaad mindida ama waxa aad ku gowracaysa aad si afayso ama aad si soofayso مثلا mindida saasad dhahaysa oo si soofanaysa si aad afu yeelato iyada isku xoqaysa insha Allah ta'ala adigoo oo neefka xoolaha ahna ka qarinaya waxana u daliil xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee nabigu uu yiri in allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ilaahay wuxuu ku waajibiyay ihsaanka iyo samafalka cid wax walba فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح marka aad wax dilaysaan dilidana maarayta hagaajiya markaad gowracaysaan gowraca hagaajiya rasuulku wuxuu si raaciyay wuxuu yiri falyuhidda ahadukum shafratahu midkiin mindidiisa ha soofeeyo oo marka waxa weeyaan afha u yeelo si neefkii maaragtay markiiba ay u gowracdo oo ay u birayso waayahay imika waxaan tusayaa neefka waa in loo jeediyo xagga iyo qiblada bismillaah walaalayaal neefka xoolaha marka aynu gowracayno waxaynu ku gowracaynaa bisinka iyo takbiirta waa nabigu wuxuu dhihi jiray kaleey salaatu wasalaam marka uu neefka xagga qiblada u jeediyo jilibkiisan ama lugtiisan ayuu halkan qoorta saari jiray san uu qaban jiray dabadeedna mindida ayuu halkan ka marin jiray hunguriga isagoo leh bismillaah Allahu akbar ayuu dhihi jiray bisinka iyo takbiirta waxa kale uu dhihi jiray Allahumma hada anni wa an ahli bayti ilaahay kan waxa loo udxaynayaa naftayda iyo reerkayga iyo qoyskayga marka nabiga kaleey salaatu wasalaam sunnadiisii sidaas ay ahayd qofka muslimkaana markuu udxaysanaya wuxuu dhahayaa Allahumma hada anni wa an ahli bayti ilaahay kan waxa weeyana ku udxaysanaya iyo reerkayga